Assalaamu calaykum. Cyber security waa in kombuyuutarada, network, serverada, software-rada iyo xogta ku jirta kombuyuutarka laga difaaco dad aan access u lahayn. Hurba.com wuxuu xirfadda cyber security u bixiyaa si ii waxbarasho ah oo ah koorsooyinka cyber security oo adigu isbarayso, iswadayso, cidna kula xisaabtamayn. Sidoo kale Hurba.com wuxuu bixiyaa cyber security master degree oo aad qaadan karto haddii aad haysato Hurbad ID infrastructure degree ee ka kooban saddexda diblooma ee kala ah IT support baro, sysadmin iyo network infrastructure. waxaana muuqaalkan iskula sharxanaa si aad koorsooyinka cyber security uga baran lahayd Hurbad. Haddaba si koorsooyinka cyber security-ga ee ii waxbarashada ee adigu goonidaada isku barayso iswadayso aad Hurba.com uga barato aad homepage-ka jooga ayaad hoos soo socon doontaa waxaana iman doontaa waa qaybtan Hurbad course library kadib waxaad klik dhihi doontaa cyber security. Boggan waxaad ka helaysaa waa koorsooyin lagu barto cilmiga cyber security-ga sida Combatia Security Plus iyo Certified Ethical Hacker. Marka koorsooyinkan cyber security-ga waxaa ka bixi karaya waa arday hore u soo dhigtay koorsooyinka networking iyo sysadmin-ka oo si fiican u fahansan. Marka haddaan hoos soo baxno koorsooyinka cyber security-ga waa kuwan. Koorsadan Certified in Cyber Security waa koorsada laga bilaabo barashada cilmiga cyber security-ga waxaana baran kara waa qof hadda ku cusub cilmiga cyber security-ga. Koorsadan Combatia Cyber Security Analyst iyana waa koorso lagu baranayo khataraha dhici kara iyo xadididooda iyo sidoo kale qofku inuu la socon karo dhaqdhaqaaqa network iyo amnigiisa guud. Koorsadan Combatia Security Plus iyadu waa hal koorso oo dhowr qaybood laga dhigay marka mid kastana cilmi gaar ah ayaad ku baranaysaa. Haddaan hoos soo soconno koorsadan Kali Linux for Ethical Hackers waxaad ku baranaysaa waa operating systemka Kali Linux oo loo adeegsado advanced penetration testing. Koorsadan Combatia Linux Plus waxaad ku baranaysaa waa operating systemka Linux oo runtii lafdhabar u ah xirfadaha kala duwan ee IT-ga sida cyber security. Haddaan hoos u baxno xaggan hoosena waxaa ku jira waa koorsooyinka Certified Ethical Hacker. Haddaan kor u baxno qaabkan waa qaabka koorsooyinka la iskugu xirxiyo. Koorsada kaga bilaabi doonto xirfadda cyber security-ga waa Certified in Cyber Security. waxaad ku xijinaysaa koorsada labaad ee ah Combatia Security Plus 01 Attacks, Threats and Vulnerabilities. Koorsada saddexaad ayaa ku sii xijinaysaa iyaduna ah Combatia Security Plus 02 Cryptography and Authentication Technologies. Qaabkaas baad noo wadaysaa. Iminkana waxaan isla eegaynaa waa qaabkaad u dalban lahayd una baran lahayd koorsooyinka cyber security. Marka koorsada aad kaga bilaabayso waa Certified in Cyber Security. Koorsadaas ayaan dul tegayaa kadib waan iska diiwaangelinayaa waxaana kuu tusayaa qaabkaad u baran lahayd. Klik ayaan dhahayaa korkeeda. Koorsadan waa koorsada laga bilaabo barashada cyber security-ga. Koorsadan waxay wadataa waa 8 10 saacadood ayay soconaysaa. Itisio e-shag ayay sidoo kale wadataa waxaana koorsadan la socota waa Certificate of Completion oo aad helayso markaad koorsadan aad dhamayso. Koorsadan qiimaheedu wuxuu joogaa $20. Taad hoos soo baxdo kuwan waa cutubyadii weeyaan. Koorsadan ilaa 8 cutub bay ka kooban tahay. Kadib waxaan dhahayaa waa hadda baro. Saad u jeedo koorsadii Certified in Cyber Security saladeena waa la inoogu daray. Haddaad hore arday u jiray aad ahayd oo meesha aad hore akoonti aad ugu lahayd xaggan baa soo furaysaa kaliya yar baad dhahaysaa to login kadib xaggan waxaad gelinaysaa username-kaaga ama email-kaaga midkood xaggana password-kaaga aad gelinaysaa kadib login baad dhahaysaa koorsada saasaad ku dalbanaysaa marka wax form buuxin maysid haddaad arday cusub tahayna formkan baynu isla buuxin doonaa marka filigan koowaad waxaad gelinaysaa magacaaga koowaad iyo magaca aabaha anigu magacayga koowaad baan gelinayaa iyo magaca aabahay xaggan filigan xigana waxaad gelinaysaa waa magaca awowga una magaca awowga ma bartan gelinayaa xaggan waxaad ka dooranaysaa wadanka joogto marka aniga Soomaaliya soo automatic ugu dooray xaggan waxaad ku qorisaa wadada aad degan tahay marka waxaan leeyahay wadada Masjid Jaamaca xaggana waxaad ku qorisaa waa gobolka aad joogto marka anigu waxaan leeyahay gobolka Togdheer xaggana waxaad ku qorisaa waa furaha wadanka aad joogto ama haddaad wadamada dibadaha aad joogtana waxaad gelinaysaa wadamadaas post code-kooda gelinaysaa ama zip code-kooda marka anigu xaggan waxaan gelinayaa waa furaha Soomaaliya marka adigu furaha wadanka aad joogto ayaa barta gelin doontaa xaggana waxaad ku qori doontaa WhatsApp number shaqeynaya oo sax ah dagaalana soo xiriiri karayo marka xaggan anigu WhatsApp number-kaygaan gashanayaa kadib xaggana waxaad gelinaysaa waa email address-kaaga anigu email address-kaygan bartan ku paste garaysanayaa email address-kaaga marka bartan soo gashato bartana waxaad ka dooran doontaa waa username marka username-ku wuxuu noqonayaa waa naanaystaada oo kala marka anigu bartan waxaan ku qoranayaa waa Hurbad 42 oo kala bartan ku qoranayaa oo aan ka dhiganayaa username xaggana password ayaan ka dooranayaa ka fadlan password-kaagu ishan ka qaadaya marka hore saad u aragtaan password-kaagu waa inuu xarfo waaweyn ay ku jiraan xarfo yaryar ay ku jiraan number uu ka kooban yahay sidoo kale special characters-ka
iyaguna ay ku jiraan. Marka waxaan leeyahay Cabdullaahi kadib sa'daas haddana waan weyneynayaa, kadib haddana la'daas waan sii weyneynayaa, xarfahan baan sii raacinayaa, intaasan ba ka dhiganayaa. kadibna baraan ku sii darayaa xarfaha gaarka ah iyaguna aan ku sii darayaa. marka fadlan passwordkaagu saas waa inuu ahaadaa oo saa u adkaadaa. strongki markuu kuu soo qoro waa password adag weeyaan. markaad usernamekaaga iyo sidoo kale passwordkaaga aad bartan gashato waxaad u baahan tahay inaad computerkaaga ku kaydsato. waxaad tegaysaa search barka, kadib xaggan waxaad ku qoraysaa notepad. notepad markuu kuu soo baxo waa isagaad sii furaysaa, kadib waa sii weynaysanaysaa. xaggan waxaad ku qoraysaa username, xaggan hoosena waxaad ku qoraysaa haddana isla username xaggan markaa ku qorato xaggan hoosena haddana waxaad ku qoranaysaa waa password. kadib kulan baad raacsiinaysaa passwordka, labada kalena kulan baad raacsiinaysaa. kadib kan waxaad soo dhiganaysaa waa usernamekaaga oo waxaad ku laabanaysaa jewad pageka. usernameku waa kan, control a baad dhahaysaa, kadib control c, kadib waxaad kusoo laabanaysaa waa notepadkaaga, kadib waxaad dhahaysaa control v. hadda usernamekaaga saas baa kusoo dhigatay. haddana waxaad usernamekaaga aad u adeegsan kartaa oo u isticmaali kartaa waa gmailkaaga. marka gmailkaaga intaad ku laabato ayaad waxaad dhahaysaa control a, kadib control c, waxaad kusoo laabanaysaa waa notepadkaaga, kadib haddana waxaad dhahaysaa control v. saas ayaa haddana waxaa kusoo dhigatay usernamekaaga oo gmailkaaga waad u isticmaali kartaa ama emailkaaga waad u isticmaali kartaa usernamekaaga si aad hadhowto aad madasha aad u gasho. marka xaggana waxaad soo dhiganaysaa waa passwordkaaga. passwordkaaguna waa kan oo isna control a baad dhahaysaa, kadib control c, kadib haddana waxaa kusoo laabanaysaa waa notepadkaaga, kadib control v ayaad dhahaysaa. kadib waxaad u baahan tahay inaad save karaysato usernamekaaga iyo passwordkaaga. waxaad tegaysaa waa file, kadib waxaad dhahaysaa waa save. waxaad iska dhigan karaysaa waa desktopkaaga. qoraalkan baan ka masaxayaa, waxaan ku qorayaa Hurbad username and password, kadib waxaad dhahaysaa save. hadda saasuu kugu save garaysan yahay usernamekaaga iyo passwordkaaga. markaad usernamekaaga iyo passwordkaaga aad soo kaydsato waxaad u meenaysaa qaybta lacag bixinta. koorsadan qiimaheedu wuxuu joogaa $20. $20 laba hab ayaad ku bixin kartaa oo manual payment iyo sidoo kale mastercard ayaad ku bixin kartaa. marka manual paymentiga intan hab ayaad kusoo diri kartaa. sidoo kale haddaan tagno mastercardkana xaggan waxaad gelinaysaa nambarka dheer xilliga uu dhacayo 3 nambar ee u dambaysa. marka anigu waxaan dooranayaa waa manual payment, kadib hoos ayaan soo baxayaa, bartan baad tigta saari doontaa. fadlan intaadan bartaa tigta saarin waa inaad xorosaadka Hurbada iska soo akhrisaa. marka xorosaadka ayaan right click dhahayaa, kadib taa cusub ayaan ku furayaa. xerosaadki waa kuwan. markaa fadlan si nidaamsan oo degan usoo akhriso. markaad soo fahanto xerosaadka waxaad kusoo laabanaysaa waa jewad pagekaaga, kadib waxaad dhahaysaa hadda dalbo. markaad tiraahdo hadda dalbo, pagekan ayaa lagu keenayaa. marka anaga dalabkaagu si automatic ayuu noo soo gaari doonaa. markaa fadlan si korsa lagugu fasaxo nambarkan whatsappka nagala soo xidhiidh. kaba soo qaad maamulkii waa la xidhiidhay, figa korsadana waa iska bixisay. korsadan seebay akoontiga kugu soo galaysaa, sidee baana u baran kartaa. markaaduu bartan jooga ayaad waxaad tegi doontaa waa my courses. my course markaad timaado hoos ayaa soo soconaysaa. saa ujeeda koorsadu seen bay akoontiga kugu soo galaysaa. waxayna markaan isla sharxanahay sidaad koorsadan u baran lahayd. marka koorsada ayaad korkeeda keli ku dhufanaysaa. koorsada markaad korkeeda aad keli ku dhufato haddana waxaad dhahaysaa waa star course. star course markaad dhahdo waxaa si automatic lagugu furi doonaa waa cutubka koowaad casharadiisa. cutubkana hordhac weeyaan, casharadiisuna ilaa 8 ayay gaarayaan. koorsadan cutubyadeedu waa 8 weeyaan. marka haddaad arrowga ku dhufato casharadii ayaa lagaa laabayaa cutubka. haddaad mar labaad ku dhufatana cutubka casharadiisa ayaa lagu soo furayaa. marka haddaan hadda iska xidhno cutubkan labaadna waa sidaas si lamid ah oo haddaad arrowga ku dhufato cutubka labaad casharadiisa lagu soo furayaa. marka cutubkan casharada uu wato waa 13 cashir weeyaan. marka haddaad mar labaad ku dhufatana waa lagaa xidhaya. hadda waxaan soo furayaa waa cutubka koowaad casharkiisa koowaad ayaana ku dhufanayaa. casharku markuu kuu soo furmo muuqaalku waa kan. muuqaalkana macallinku wuxuu ku sharxayaa oo waxyaabahaad ku baranaysid koorsadan. marka muuqaalkan ayaan isla yara daaraynaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا كورسدان مقعيدو يهي Certified in Cyber Security. كورسدان وحا سو ساري IC Square وحينا ugu talagashay qof ku cusub barashada cilmiga cyber security. muuqaalku saas uu daarmaya, macallinkuna saas ayuu casharka u sharxayaa. marka bartan codka ayaa laga dheeraystaa lagana gaabiyaa. hadaa jiirkaa tagto quality-ga videoga waa inaad markasta ku institution uu ku ahaadaa. bartan muuqaalka waa laga weynaystaa waana laga yareeyaa. casharkan markaad soo fahanto hoos ayaa u soconaysaa, waxaadna dhahaysaa waan fahmay markaad tiraahdo waxaa si toosa lagu keenayaa waa casharka labaad ee koorsada. marka casharkanna hore ayaa u soo martay. marka casharka labaadna waa inaad la soo degto course slideska. si aad course slideska la soo degto waxaad riixaysaa waa bottomkan.
hadda koorsada waa inaga saaray marka koorsada waynu ku laaban doonaa balse marka hore waxaan la soo deganaa waa course slideska si aad la soo degto waxaad ku dhufanaysaa waa arrowdaas yar ee hoos eegaysa kadib waxaad iska dhigan karaysaa waa downloadskaaga anigu downloadskaygaan iska dhiganayaa oo save baan dhahayaa haddaba si aad usoo furato course slideska waxaad tegaysaa waa downloadska ama hadba meesha aad kula soo degtay marka anigu waxaan tegayaa waa file explorerka kadib downloadska ayaan kula soo degay waa kan waan sii furayaa course slideski waa kuwan marka adiga waxay kugu furmi doonaan waa pdf viewerka adiga kugu jira marka kombuyuutarkaaga waad kala socon kartaa casharada ama waad soo daabacan kartaa faylkan haddaba si aad koorsadii ugu laabato arrowga ayaad ku dhufanaysaa arrowga markaad ku dhufato waxaa si toos lagugu soo celin doonaa waa koorsadii marka hadda waxaad la soo degtay waa course slideska marka casharkan waxaad dhahaysaa waan fahmay maadaama la soo degtay hadda waxaa layna keenay waa casharkii saddexaad marka muuqaalkan markaad daawato casharkana aad fahanto waxaad dhahaysaa waan fahmay sidaas ayaadna koorsada u wadi doontaa haddaad rabto inaad shaashada aad madow ka dhigato iconkan baad ku dhufanaysaa oo mugdi buu kuu noqonayaa haddaad rabtona sidaadii hore waa u deysan kartaa oo mar labaad baa ku dhufanaysaa kadib leyd moodkaagiibuu kugu soo laabanaya haddaad negasti dhahdo waxaa lagu keenayaa casharka xiga hadda casharkii afraad ayaana la keenay marka haddaad rabto inaad casharka hore aad dib ugu laabato waxaad dhahaysaa previous markaad dhahdo casharkii hore ayaa dib lagugu celinayaa sidaas ayaa loo dalbadaa loona bartaa koorsooyinka cyber security-ga waxaanu iminkana isla yeeganaa si aad korso kale akoonkaaga aad ugu soo darsan lahayd markaadoo bartan joogaa waxaad tegi doontaa waa iconkaas kadib waxaad kasii tegaysaa waa course library markaad timaado qaybtan waad iska laabi doontaa kadib hoos ayaad soo soconaysaa waxaana tegaysaa cyber security markaad bukan timaado tusaalehaan haddaad rabto inaad koorsadan labaad oo kale akoonkaaga aad ku soo darsato koorsada ayaad tegi doontaa waana tan marka koorsadaas ayaad kilig dhahaysaa koorsadii waa tan marka waxaad dhahaysaa hadda baro saad u jeedo koorsadii salada waa lagugu daray marka foomkan ma baahan inaad mar labaad buuxiso oo arday soo laabtay ayaa tahay kaliya koorsada fiigeeda ayaa iska bixinaysaa koorsada fiigeeduna waa $20 weeyaan lacagta laba qaab ayaad u bixin kartaa waa manual payment iyo sidoo kale mastercard ka manual paymentiga dahab qaabkan baad usoo diraysaa sidoo kale EVC Pluska qaabkan baad usoo diraysaa saadka qaabkan baad usoo diraysaa sahalkana qaabkan baad usoo diraysaa haddaad Djibouti joogta oo kale instructionkan baad raacaysaa haddaad dowlad deegaanka joogto nambarkan baad kusoo diraysaa Etoobiyaanka haddaad Kenya joogtana nambarkan baad kusoo diraysaa haddaan hoos soo soconno mastercardkana xaggan xogta mastercardka ayaad gelinaysaa kan waxaan dooranayaa manual paymentiga kadib hoos ayaad soo soconaysaa bartan baad tigta saari doontaa markaa fadlan xiroosaadkas ka soo akhri haddaadan hore usoo akhrin waxaana filayaa inaad hore aad usoo akhrisay marka waxaad dhahaysaa hadda dalbo markaad tiraahdo waxaa lagu keenayaa waa boggan marka annaga dalabkaagu si automatic ayuu noo soo gaari doonaa koorsadan fiigeeda markaad la baxdana way kuu soo geli doontaa akoonkaaga